تنبه waxaan sharaf iyo karaamad ii ah markasta inaan ahaa Soomaali waan salaamaya waayo nolosheeda ilayhi Soomaali waa dhiigayagi waa dadkayagi calanka buluuga reer Jabuuti haddaanu dambi iga raacayn waxa oran lahaa calanka buluuga loo sujuudo ayaa oran lahaa waa kii waxna taray dawladda noo sameeyay dhaqaalaha na siiyay na garab qabtay cadowga naga ilaaliyay halkiina deganaada عيد صوت المركرتان ما جرت كاوي على كاس أبال بين نقوليهن وحي أنا أودي كرنا وانقوانا إنها شركي عرتا لبدي يكون اسمع المرجل اللي هو كجوابه دولة الصومالية مركب بربرتي وحي كده ذالي إن قرن الصومالية اللي السمايو ما أنت أنا قرن كي الصومالي واتاقيها إن كسته أو أولوتي أيو لكن أنا أبال كودا ما قودي كرنا صومالي أبال كده ما قودي كرنا وحلا قودي كرا كوي وحلا قودي كرا وكوية وحان مانتا دقيستي والله يصدري فيصل علي ورابه وهرقيسان دحسود عالم ساولو دكان يا مرضي اي سميستين اياكو اي سميستين دكان وحوليه حمر بالا قبصانيه بالشمي بالا قبصانيه وبش soo socota ayaa la qabsanaya shabaab baa qabsanaya Allahu akbar wuxuu cadeeyay inuu shabaab yahay wuxuu cadeeyay in markii hore dadku way toomayeen anigu waan sheegi jiray waxa oran jiray reerkan waa argagixisadii weeyaan baan oran jiray iyaga ayaa ka dambeeyay waayo waxaan u oranayay xamar haday wax ka dhacaan Hargeysa laga farxi jiray amarka Ilaahay markay meel qaraxdo Hargeysa baarti la isku imanay waxay ii muuqataa marka aniga aqligaygu siiyay inay qayb ka yihiin al-shabaabka markaan taariikhdoodii eega iyo shabaabta sida lagu sameeyana reerkaas ay wada noqdeen Ismaaciil Caraale Afkhaan ninkii kale muxuu ahaa Godane all in all kanima ka yimid ee la yiraahdo aadan sunne aqooyahankooga iyo abwaanadoodii iyo cid walba kan gudoomiyaha hadda dhamaan waa iyaga waxaan markaa isweydiiyay sababta ay u sameeyeen haday sameeyeen oo janno rabaan Hargeysa ba kanisada leh oo leh hodheelaha habeenkii la isku salaaxo oo laga tunto oo leh ragii la diidayba oo sheegay ninka maxkamadda haysta 3,500 oo nin baa joogo oo kuwa isfuula maxkamadda Hargeysa ninka haysta alaasada oo wanaya hadday janno doonayaan abaarso ayaa jirta maxay halka wax uga qaban laayihiin maxay ta jannada xamar taala janna xamar taala waa Soomaali nacayb waxay leeyihiin xamar hadday qaraxdo oo ay burburto idinka qaran noqonayo taas ka dhacsaniyay marka xamar qarax ka dhacaba waxaad ku soo dhawaanaysaa inaad qaran noqotaan dawlad noqotaan oo aqoonsi heshaan waa intaas waxa xamar roob burinaya ee dhaqaalaha loo gelinaya imika reer waa loo sheego waxa la yiri may baan qarxinaynaa Soomaaliya de intaas heshiis ku galeen madaxweynihii dalka Faransiiska ee Mitterrand loo oran jiray ayaa qof inuu dhinto doonayo isqarxinaya oo bam xambaarsan wax lagu hor joogsado ma hayno nuclear power dhawaana heshiis baa fiican in la galo yani qof inuu isdila doonayo oo walking bama socda waxaan ku hor joogsano ma hayno xamar inta ay dhisneedba ninka bamka sita ee inuu isqarxiyo doonayo bay la dagaalamayeen oo hor joogaan oo guriyahooda dhisanaya noloshooda caadi ahayd ninkaana wala la dagaalamayo wala dilayo bamka sita wuxuu ilaaway Faysal markaa amba qolooyinkan waxay ilaaween Soomaaliya markii qarankeedii dumay 17 dal oo Mareykanku hogaaminayo ayaa yimid wixii ka dhacay waa la ogyahay tabtii meeshii goojacada to ka daran ba ka dhacday diyaaradii baa laga soo degay filimaan laga sameeyay bilaa ku dhaan loo yiraahdo Faysal cid kuma dhici karto Ethiopia waa tii soo gashay iyada ka baxday hab qaran ayaa ka baxday Ethiopia iya ka saaray ciidamada Soomaaliyeed baa jiray dadka xamar jooga ka saaray gabi meesha gadal iraahdo iyo Garbahaare ciidamada Kenyaana soo galay oo deer baan dhisayna wixii ka dhacay diyaabadii baa la qabsaday dumar baa qabsaday war dadkana waa heroes adoo hanjabaysa la qabsanaya oo jabhad baa qabsanaysa waa heroes dadkana waa geesiyaal idoo tay kartaa ma jirto ma cid baa caawusay ma Soomaali kala caawusay
iyagaa dhulkoodii xoraystay oo lagu soo dhici waayey iyagoo bilaa dowlada oo bilaa ciidana oo gacmo maran ayay cid walba la dagaalameen dadka leeda waa la qabsanaya waalli unbaa ku galaysa de adiga markaa wixii baad xajini kari weyde carruurtu waxay tidhaahdaa alxikmatu fii cuquuli magaanin wixii jira dadka waalan baa laga helaa alxikmatu fii cuquuli magaanin waad waalan tahay waad ku riyoonaysaa soomaaliya oo shabaab qabsatay oo burburtay oo la waayey oo la idhaahdo somalilan baa markaa la aqoonsanaya waad ku riyoonaysa mid kale aan arkayuu lahaa annaga laascaano waa naag la furoo kaloo nagama furmayso warqad ma siinayno laabsalaax baa la idhahdaa laabsalaaxow soomaaliya inaad ka goodoon adigu infisaal ka hesho warqad ka hesho waxay ku xidhan tahay baarlamaanka soomaaliya oo mooshin la geeyo oo la idhaahdo somalilan waan fasaxaynaa baarlamaankuna go-aan ku gaadho in soomaali afti laga qaado oo soomaaliya ku fasaxdo ayaad ku go'i kartaa laakiin naagtu hadday waalato oo dharka daadiso ninkii qabi jiray uunbaa qaba wax alla wixii sharci ahaa waad jebiseen nidaamna kuma socotaan sharci darro weeye waxaad wadataan that means waa naag qaawan naagtu hadday qaawanaato oo dharka daadiso oy waalato ninkii qabaya uunbaa qabaya ilaa weligeedba saan bay ahaanaysaa marka ta waalani waa adiga ta la qabayna waa adiga ta aan warqad haysanna waa adiga ta dharkii daadisana waa adiga maadaama aad dharkii daadisana sharcigaaba dhigaya naagtu hadday waalato ninkii qabi jiray unbaa qabaya been iyo barobagaad baa idin waale soomaali unbaad ka mid ahaanaysaa marka ninku hadduu waasho uu dharka daadiyo waa automatic way ka furantaa gabadhu laakiin naagtu hadday waalato warqad ma hesho marka adigu naagta waalan waa adiga ee ninkeediina ka tagtay warqaddiina aan sidan ee doonayso weliba nin kale inuu guursado magac kale la baxdo waa adiga mid kale oo dolfeen u eg bahal dolfeen la yidhahdaa jiro madaxa maahan inta kale isku eg tahay oo la yidhahdo bk dalfan buu egyahay wuxuu yidhi laascaanood annaga inaga tirsanta wax kasta hadday dhacaan laascaanood annaga ayay naga tirsanta bko waxaa tiri waxaan ka baxay fankii waan toobad keenay toobad baan keenay makaa tagtay xaramkaa tagtay waad soo noqoto waa toobad keeno tusbaxiyo baad qaadatay waxbaan kugu arkay adoo sita oo quraan iyo xadiis ay wax akhriyaayo carabtu waxay tidhaahdaa toobatalqaxba yoomeen naagta dhilada 2 cisho unbay toobad keentaa maalin saddexaad waxeedii bay ku noqotaa marjuucsaday meheradaydii wixii baad ku soo noqotay adigu waxaad tahay naagii suuqa ku jiray naagta suuqa ku jirtay tiri waan toobad keenay 2 cisho toobatalqaxba yoomeen 2 cisho unbay odhanaysaa waan toobad keenay maalin saddexaad halkeedii bay ku soo noqonaysaa adigu taasaa tahay marka cid wax kaa weydiinaysa adiga ma jiro soomaaliyana jiritaankeedu waa muqadas calankaa soomaaliyeed baa annaga muqadas noo ah waxaan rabaa weliba waan ku faraxsanahay in ceeri gaaba laga taago calankaa soomaaliyeed markii hore waxaan tegey gooja cadde waxaan tegey laascaano waxaan tegey tukarraq waxaan u tegey cimraysi baan u tegey iyo cibaadaysi ayaan u tegey maanta waxaan sugayaa inaan xaj oo kale u tago ceeri gaabo maanta calanka laga taago xaj bay ii noqonaysaa waana tagaya ballan weeye saa ballantaa qaaday weeye wufu bilcahdi in cahdu kaana mas-uula waxaan ku darayaa in yaroo waajiba inaan idhaahdo oon tolkay kula hadlo markii aanu calanka doonaynay dowladdii soomaaliya markay dhalatay maxamuud xarbi baa lagu casumay isagii xaaskiisa calanka soomaaliyeed baa lagu casumay loo dhiibay guryaha laga siiyey xeebta liido oo iminka guryahaas safaaradda soomaaliya ku jirta xafiisya loo furay ku raadiyo qarannimadii jabuuti dowladdii jabuuti uu ku raadiyo xornimadii jabuuti uu ku raadiyo ayaa loo furay ina cigaal markuu qabsaday waxaan u malayn 64 inay ahayd uu prime minister noqday wuxuu xidhay xafiisyadii maxamuud xarbi wuxuu xidhay xafiis looga furay hargeysa wuxuu xidhay ciidankiisii oo dhan ayuu baabiiyey wuxuu heshiis la galay dalka faransiiska oo $1 million uu ka qaatay wuxuu safiiruhu geeyey niman almaadiriyiin oo axmed yuusuf dacaale la yidhaahdo ayuu geeyey xafiisyadii oo dhanna uu ka xidhay uu ka masaafuriyo qaahirey tegey tolkay baan u sheegaya waa taariikh iga qora meel ku qorta
caruusha meel laydhaa buu ku bixiyey dhulkii kenya inaga haysatay uu oggolaaday halkana faransiisku u oggolaado wuxuu yidhi gasiirad ka dhigta oo aniga lacaganu siiya gasiirad faransiiska ka mid ah 7 markii jabuuti ay xornimada doonayso wiid iyo noodii waad maqasheen baan u malaynaya isagaa dhabari ka toogtay dadkii xornimada doonayay ee jabuuti ku noolaa kumaan kun qof ka badan ayaa siliga lagu xidhay oo la dilay halkaa laabta laga jeexay inaad ogaataan baan doonaya 69 markii dowladdii soomaaliya afgambiguu ka dhacay maxamed siyaad barre ayaa dib u furay xafiisyadii maxamed siyaad barre soo celiyey xafiisyadii xamarkaana xafiiskii hargeysana u furay jabhadna uu sameeyey FLS la yidhaahdo oo laga sameeyey meel cabdulqaadir madaxdadley meel la yidhaha baa laga sameeyey oo cabdulqaadir saylac meelaha u dhow ayaa laga sameeyey jabhad reer jabuuti oo dagaalanta oo dhaqaalahana dowladda soomaaliya bixinaysa ardaydii dadkii soomaaliya reer jabuuti oo soomaaliya joogana dowladdu mishaar bay u qortay maxamed siyaad barre isagana waa la xidhay isagii ninkii kale safiirkaaba waa la xidhay xabsi daayin baa lagu xukumay waayo dalkii soomaaliyeed bay iibinayeen jabuuti ay iibinayeen kuwii markaa la shaqaynayay faransiiska ee basaasiinta ahaa ee shaadirlayaasha ahaa baa idinla jooga inacigaa reerkiisa habarawashi way idinla joogaan basaasiin bay ahaayeen reerkaas ayay ahaan jireen isaaqoo dhan ima wada xumayn inaan nin candhoola nin la idhaa baa jiray oo halganka ka mid ahaa waxaa jiray ninkii la odhan jiray aadan maxaa la odhan jiray fanaanka abwaanka ahaa ibraahim galle waxaa jiray nin kale oo la idhaahdo maxamed rashiid oo xogeeye u ahaa maxamuud xarbe laakiin intan idinla joogtaay waa kuwii basaasiinta ahaa jiib baa la soo saari jiray xagga dambaa la fadhiisin jiray bostikana la idhaahdaa halka ayga ayaa la soo fadhiisan jiray marka 2 nin baa dhinacyada ka fadhiisan jirtay shaadir baa loo soo xili jiray dadkuu sheegi jiray guryaha dadka ciise halgamaya ayuu sheegi jiray waka kuwii baa idinla jooga markaa maanta cali bordeel aabbihii baa ka mid ahaa dadka sheegi jiray isagaa ka mid ahaa iminkana baarlamaanku idin fadhiya cadow baa idinla walaala aydan arkay inaad barataan baan rabaa martidan inaad barataan dhibaatada idiin geystay inaan qorno oon maalin walba idiin sheegaan rabaa martidani mudantii ku durdurisay inaad ogaataan ood wax ka qabataan ood dareentaan ood fahamtaan tolkayow baasha barta qabyaaladda barta kii shalay tole waxaa idinla samaynayay ayaa idin garab joogo ehel baad ka dhiganaysaan walaal baad ka dhiganaysaan reer jabuutaa wada nahay buu ku odhanaya been buu kuu sheegaya way bukaan waa inaad barataan qabyaaladda barta cadow bay noo yihiin innaga markaan calanka doonayna xiniyahayna jiidayeen hoos bay xiniyahay noo jiideen inaan guulaysan bay doonayeen markaan calankii qaadanena way isu keen ekaysiiyeen innagii way isu keen ekaysiinaya waa daba kuwii cadowga ahaa idinkuna waxaad usataan dad fiican markaa ciisow dulqaadka faraha badan ee doqonnimuu noqdaa na'iif ayuu noqdaa waa inaad iska jirtaan maalin walba waan sheegay jalad kastoon qabto martida waan idin sheegay waan idin fahamsiini inaad xoga barataan maan rabaa ood qabyaaladda barataan aad baa idin salaamaya meel kastoo dunida joogtaan soomaali waa idin salaamaya